salaamullaahi calaykum arooryo suuban dhammaantiin magacaygu waa Suhayb Daxeeye waxaan ahay asaasaha iyo gudoomiyaha The American English muuqaalkan haddii alla idmo waxaan idinkula wadaagi doonaa documentary ama dhigaal yar oo ah qaabkii aan luqadaan ku bartay markii aan waxa weeyaan su'aalo fara badan la igu soo weydiiyay qaabkeed aad luqadda ku baratay sida wanaagsan adigoo aan wadankii ka bixin waxaan jeclaystay inaan haddii alla idmo muuqaalkan aan idila wadaago dabayaaqadii 2016 ayaan ku biiray dugsi la oran jiray Bartay Academy oo aan halkan aad uga salaamayo halwadeenadii iyo gudoomiyaashiba waxay ahayd baan filayaa in September bishii 9aad meelaha iskuulka Shaqrayn baan imtixaan ku galay anigoo waagi hore aan wax luqada aqoonin waxyaabaha dadka iminka luqada baranaya aan sawirkooda ku tusaaleeyo waxa kamid ah waagaan iskuulka ku biirayay xitaa ma ogeyn in English to ay luqad tahay يعني waxa kala duwan qofku inuu English ta aanu garanaynin laakiin waxa ka sii xeel dheer inuu qofka aanu luqadda Englishka aanu luqad jirta baan u aqoon iskuulkan ku biiray waan xasuustaa markii aan geedka soo galay macallimad bay soo dhaweysay waxa igu tiri hello Suhayb how are you kadib dabeetana waxa weeyaan waan yaabay how are you xitaa ma aqoonin waa iska dhaafay waxa weeyaa socodkaygii ama safarkaygii luqadda ayaa bartayga bilaabmay 2021 I would say at the end of 2020 2020 dhamaadkiisii ayaan iskuulkii waxa weeyaan ka baxay oo anigu aan waxa weeyaan wada ii jeexnayd aan waxa weeyaan galay haddana luqadii waxa weeyaan igamay guurin oo I guess imika in 2025 lagu jiraba 3 sano ama 4 sano waxa weeyaan ku dhawaad ayaan luqadda waxa weeyaan macallin ka ahay oo dhamaan waxa weeyaan goobaha luqadda lagu dhigtay ee magaalada Bartay ku yaala baan soo maray ugu dambeynna 2023 ayaan bilaabay The American English oo ah goob waxa weeyaan khibrado fara badan isugu tageen in badan laga fakarayay gobolka Togdheer ama degmada Bartay waxa ay tabanayso in waxa weeyaan lagu xalliyo sanadii 2023 baanu bilownay The American English bishii 7aad waana goob loo design gareeyay ama loo qalabeeyay in ardaygu luqadda si freely ugu hadlo يعني dhibaatooyinka gobolka haysta waxa kamid ah in qofku luqadii uu u barto si yani luqad ahaan laakiin aanu ku hadli karaynin hadii aanu soo diyaarsan aanu meel soo istaagi karaynin The American English asaaska iyo go'oldhig wuxuu ahaa in qofku laba laga helo kow luqadii uu si waxa weeyaan academiga uu barto oo si aqoomaysan oo waxa weeyaan qofkii aqoon uu faa'iidi karayo wixii waa deeska luqaduna deeday laakiin in qofku luqadii la baro si academiga ayaanu ka duulaynay qodobka labaadna waxa ahayd in qofku uu ugu hadli karayo luqadii si waxa weeyaan freely confidently concisely qofku inuu waxa weeyaan fagaare soo istaagi karayo oo wuxuu doono uu ka hadli karayo isagoo aan waxba soo diyaarsan hadii dadku ku qasabto The American English imika waxay jirsatay sanad muddada sanadka ana gobolka Togdheer ama magaalada Bartay si hufan oo milgiya maamuus labay ugu faaftay oo waxa weeyaan dad fara badan ay uga hadlayaan haddii aad doonayso inaad luqadda barato oo waxa weeyaan sanadkan cusub aad doonayso inaad luqadda iska dhisto waliba muddo kooban oo waxyaabaha imika aan waxa weeyaan documentary oo sameynayaan ka duulay waxa kamid ah in dad badan waxa weeyaan la marin habaabiyay oo leeyahay luqadda waxaad ku baranaysaa 2 sano 3 sano 4 sano qaar dhiganayaan arkay laakiin American English inta uu ka duwan yahay oo maadaama dadku ay kala duwan yihiin wuxuu baa loogu talagalay in waxa weeyaan qofka basiskiisa marka hore la itixaamo oo la eego qofkan bartu marayo dhakhtarka imika markaad u tagto daweyska markaad siinayo laakiin marka hore waa in examining marto ama lab examining marka The American English markaad xafiiska ku timaado wuxuu hadii alla idmo qaban doonaa inuu ku eego ku qiimeeyo levelka aad u qalantana uu ku geeyo hadii waxa weeyaan aad hoosta ka soo bilaabantana muddo 9 bilood ayaad ku dhamaynaysaa hadii aad imtixaan ka gasho aad level fiican gaadhana muddo 6 bilood aad ku dhamaynaysaa oo sanadkii iyo 2 sano iyo 4 sanaba meeshii way ka baxayaan waxaan kaloo waxa weeyaan documentary-gan kaga faa'iideysanayaa inaan idila wadaago inaanu bilownay qaybtii online ka ahayd oo dad fara badan ay naga soo codsanayeen college-ku muddada sanadkii uu jiray xog ururin ku jiray waxyaabaha qaybta online-ka ka khaldan sida loo xalin karayo waan ku guuleysanay inaanu ururino xogta maantana aanu bilowno qaybta online-ka waxaan rajaynayaa in documentary-gan aad waxa weeyaan waxyaabo fara badan ka faa'iiday aad iyo aad baan ku salaamayaa waxa inoo balana adigoo luqadda ku hadlaya oo The American English jooga